agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland Marwo Nafiisa Maxamuud Shirwac ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka waxaana degmada ku soo dhaweeyay maayarka degmada Gabiley ahna duqa magaalada xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka haween waxgarad cuqaal salaadiin iyo haldoor aad u tiro badan ayaa maanta iskugu soo baxay soo dhaweynta agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Marwo Nafiisa Maxamuud Shirwac soo dhaweynta agaasimaha guud ayaa lagu qabtay hotelka Taj Plaza iyo sidoo kale kulan ay kula kulmaysay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gabiley haweenka iyo salaadiintii iyo mas'uuliyiintii halkaasi ka soo qayb galay ayaa hadalka qaatay isla markaasina hadallo soo dhaweynaa oo ay ku soo dhaweynayaan agaasimaha guud halkaasi ka jeediyay aynu ku soo dhaweynayno agaasimaha wasaaradda biyaha marka hore waxaan salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waanu soo dhaweynaynaa agaasimaha si wanaagsan oo ayaan u soo dhaweynaynaa waliba waqtiga lagu jiro ee doorasho iyo wax imanayaan insha Allah taala waanu la shaqayn doonaa waananu gacan qabanaynaa kamana ag tagayno waanu la soconaynaa taasi waa ta kale waxaan u dhaafayaa gobolka waa agaasimihii koowaad ee isagoo bilan dadkiisa dalbaday aynu halkaa maanta ugu yoom jimcaha tahay taana waan ku hambalyeynayna iyadana waan ku soo dhaweynaynaa warta agaasimo guud wali loo yimaado bayl aniga inta ka horeeyo biyaha ka socda meel kasta aad baa ku soo dhaweynaadeer inantayda la magactay Nafiisa Maxamuud baa arday Nafiisa Maxamuud maanta waa maalin aad iyo aad inagu hadaynu dumarnahay noogu qiimo badan waa maalin sharaf noole waa maalin karaamo noole waxa laga dareemayaa maanta iyadoo jimco tahay inaan haddana Nafiisa u soo baxnay oo aynu ka maqnaan kar weynay sababtuna waxa weeyaan Nafiisa marka koobaad waa ruux haweena oo agaasimo guuda mar labaadna waxaynu ognahay Nafiisa inay tahay qof la dareena bulshadeeda oo hore uga shaqeynaysa arrimaha bulshada oo runtii mar hore iyo mar labaadba aan horena u sheegnay imikana sheegayno Nafiisa inay hore gobolkeeda u gashatay dumarka reer Gabiley wax badan inay gashatay oo dumarkeeda la soo shaqeysay oo kuwa danyarta la shaqeysay oo kuwa baayaha gaarka qabo la shaqeysay madaxweynaha qaranka waxaan leenahay in badan baan xaggaaga soo eeganay xagga haweenka oo nu raadinayna gabadh si dhaba noo matasha laakiin maanta waad asiibtay madaxweyne waanad ku mahadsan tahay runtii maanta Nafiisa magacawday aad iyo aad baan ugu diirsanay haddaan nahay haweenka gobolka Gabiley aad iyo aad baan ugu diirsanay runtii waxaan leenahay dareenka inoogu timid maanta ee timiday Gabiley ee doontay bulshadeedii inay la kulanto oo ay la sheekaysato dadkeeda aragto calashan waa dareenkii horeba ugu jiray bulshadeeda ugu adeegaysay kii un bay maanta Nafiisa si la bilaabtay agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha waan soo dhaweynaynaa waa qofkii ugu horeeyay ee kulan noocan oo kala sameeya waqti xasaasiyana waa lagu jiraa jihada doorashada kulli waa la sugayaa gobolkuna kulli wuxuu doonayaa inuu isku duubnaado aniga mar labaadna farxad bay taho mar labaadna haday Shirwac walaalihiin abtinimaan maanta sheeganaya abti aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa mar labaadna adeer baan ku mar labaadna waan kugu celinayaa haweenka gobolka Gabileyna waad salaamantiin agaasimaha guud oo runtii agaasimihii horeeyay dawladda inooga yimaada inana taba ee yiraahdo waxaan la kulmayaa bulshada Gabiley runtii fikirka iyo hamada ay keentay iyo wanaagaasi qofkii horeeyay maadaama ay tahay aad baan ugu mahad celinaynaa aad baan u salaamaynaa maqaas agaasimaha marka hore waan soo dhaweynaynaa agaasimaha guud waxaan leenahay waa gobolkaagii ku soo dhawow anagu horena waa ugu ducaynayoo aniga culimo kale maanta xilka ay la wareegaysayna qoladii waxaanu Hargeysa xilka ugu soo wareejisay xafladda hore waan ugu soo ducaynay agaasimaha mar labaadna waa u soo ducaynaynaa mas'uul iyo hordha aragto waxa daba socday waa fooshii oo dhalmadii baa ku xigtay waxaynu u baahanahay lafteedana bahasha inaan meel iska saarno oo meel iska tiirna baan u baahanahay halkii la inagu yaqaanay u baan maantana kulay niba meel baa bowg ugu jeexay anaga halkii buu baygu uga jeexan yahay anigu ka maaray ahaan kulay maanta waxaynu ku soo dhaweynaynaa halkan Nafiisa oo agaasimihii gobolka aad iyo aad bay u mahadsan tahay sida quruxda badan
ee u soo abaabushaan inaguna haynooga ajiibnay وحلكم ساري دمان جمهورية الصوماليلان إلا عرفنا صوّد مري سيدي أدوغا لهاي برشة الرئيس الصوماليلان سيدا وهلان خيرات كبيها يدو بيو يهين لفدبرة الكوبات إنه رش بني آدمك وهداني بيشرين أنا نولي بشرتين نرشينا يكون حرنتين بيهاس آدي أدبان وطانا قوة عمبالينينا سيدا كرتيد عليه يحلك السنمات عليه يدحلك آجي قرق قوي مضي أدوغ قدتي agaasimaha madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku halbalyeynaa agaasimayaasha oo noo magacaabay ee haweenka ah deeqa iyo nafiisa waxaan ku leenahay waad ku mahadsan tahay aad iyo mahadsantihiin waxaan leenahay nafiisa maxamuud Shirwac ku soo dhaw gobolkaagii ku soo dhaw degmadaadii Gabiley gobolkaagii Gabiley agaasime aad iyo aad ayaan ku soo dhaweynaynaa maanta oo ay jimco tahay adoo gartay يا ما تجمع لنا صوت قطو صلاة الجمعة قبل كاي قبيلي ودويني سينا أضرقته هذه أبغى ما عندنا مدحوينها وعلينا هاي نمان قبل كاي قبيلي ونبض ساو شيء مع كل واسو وعقول جرح اللي جبه القضاء وعفنا يا كل كلام معناشها أي برشلو كم قطعها كان يوضياشي قبل كو وما الجمعة ما نسى الجمعة جانس كو حلوة بحسنا وجهي gabagabadii hadalka waxaa qaatay duqa magaalada Gabiley iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland Marwo Nafiisa Maxamuud Shirwac waxaana yiraahdeen runtii sharaf iyo qiimo weyn bay noo tahay inaynu maanta halkan ku soo dhaweyno agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Marwo Nafiisa oo maalin jimca ayna soo booqatay iyadoo aan shaqo u iman agaasima aad baanu ku soo dhaweynaynaa waqtiga qiimaha badan ee aad dadkaaga soo siisayna waa kaaga mahad celinaynaa way yar tahay runtii in qofku maalintii uu nasanayay isagoon shaqo u socon inuu yidhaahdo aan dadkaygii u tago oo aan soo waraysto oon waqti siiyo oo aanan kugu bogaadaynaa runtii adigoo ah hooyo oo aanu garan karno runtii hooyada mas-uuliyad qaran haysa inay culays gaari sii saaran yahay oo maalintan jimcahaana dee maalinta ay caruurtii iyo reerkii ay fursad u helayso ay tahay taa beddelkeeda iyaguna halkan waxaa jooga bulsho sharaf mudan oo iyaguna maalintaasoo iyaguna maalintoodii nasashada ah qiimayn adiga ay kuu hayaan iyo karaamayn ay kuu hayaan kuugu yimiday oo ilaa saaka halkan u joogay inay ku soo dhaweeyaan iyagana runtii si gaara baan u mahad celinayaa aad iyo aad baanu mar labaad iyo mar saddexaadba kuu soo dhaweynaynaa waanad ku mahadsan tahay iyagana waan u mahad celinayaa waa ilaa hadda mas-uuliyadda madaxweynaha qaranku ku igmaday iyo sidaad u wadana waa ku mahadsan tahay maasha allah Soomaaliland ha waarto allah kugu asturadeer aad baad u mahadsan tahay mas-uuliyadda biyaha waa mas-uuliyad xasaasiya oo inta ay Soomaaliland degmo iyo gobol jirtaba qofka xilka haya ma seexanayo ceel bay deynaba ku gooday ijiinkii baa baktiyay waa hawl xasaasiye weey waayo waynu garan karanaayo de saaka qofka lagu yiraahdo taangigaagii biyo kuma jiraan halkan inoogu iman kareen marka shaqo xasaasiye baad haysaa inta imika aad xilka haysay iyo sidaad u wadana waa ka warqabnaa ilaahay ha kugu asturo halkaana ka sii wad gobolkan iyo bulshadiisuna de sida dadka qaar ku oran maaya noo xigta miise mas'uuliyadda qarankana sideeda u gudo gobolkan oo arrimaha biyuhu runtii ay baahi ay jirtana ha iloobin siyaasi anigu ma yihiin runtii waxaan ahay dabcan shaqaalaan ahay oo agaasimaha guud markaad eegto xeerka kala xadeynta maamulka xukuumadda waa shaqaale ma aha xubin siyaasiya aniga oo dabcan xil qaran haya oo ah agaasimo guud kana soo jeedo gobolkaygii runtii waxaan jeclaystay inaan maanta la kulmo bulshaweynta kala duwan ee gobolkayga rag iyo haweenba aan la sheekaysto aanu isxog waraysano isxaal waraysano si fiican u sheekaysano dabcan ujeedada aanu imid waxay ahayd booqasho iyo bariido iyo salaan maanta aan idinla imid taasoo runtii ilaa maalintii xilka la ii magacaabay
aan maalinna qalbigayga ka bixin ma habeen iyo maalinba niyadda iyo qalbiga waan idinku hayay balse waxa iga kiin mashquuliyay xilka qaranka ee aan hayo oo runtii xil aad iyo aad u culus ah waad garan karaysaan mas'uuliyadda qaranka aan u hayo waa mid aad iyo aad u ballaaran guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ayaan u ahay agaasimaha guud ee biyaha oo dhammaan sidaa ii soo eegaya oo biyo iga sugaya waad ogtihiin baahiyaha biyaha ee dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland inay yihiin kuwa aad iyo aad u fara badan oo aanan odhan karaynin maanta gobol kaliya oo Soomaaliland ka mid ah ayaa biyihii laga xaqabtiray oo biyo ka dhargay miyi iyo magaalaba biyihii waynu u baahanahay Hargeysa oo caasimadii baan biyihii lagaga dhargin oo kala badh ama inta ugu badan aan idhaahdee booyada loo shubaa oo booyaduhu ay u dhaamiyaan oo ka caba dabcan baahida intaa leeg iyo mas'uuliyadda intaa leeg ayaa markaa iga kiin mashquulisay mar walba qalbiga waan ku hayaa gobolkayga in aan u imaado oo aan la sheekaysto oo aan kulamo gaara iyo kulamo guudba la yeesho aad iyo aad baan u jecelahay sababtoo ah waxa weeyaan waa ciddii aan matalayay cidda aan matalayay waa idinka gobolkayga Gabiley maadaama aan idin matalayo waajib bay igu tahay inaan xaalkiina iyo arrimihiina iyo xogtiina iyo baahiyihiina iyo wax kastoo jira si gaara inaan u ogaado waa Khalid Maxamed Daahir telefishinka Sky Cable magaalada Gabiley ee xarunta gobolka